السلام عليكم سو dhawaada saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan iyo fiideo cusub kuwa channelka ku cusub subscribe ta noogu cimaamada fiideogana lag noo saara sidaan u gaarno hadafkeena saaxiibayaal maantana waxaan hayaa application sida TikTok oo kala oo aad lacag ka sameyn karto fiideoyadaada ayaa soo dhigaysa lacag ayaa lagugu siinayaa sawiradaada ayaa soo dhigaysa lacag ayaa lagugu siinayaa application kan indhaha caalamka ayaa hadal haya in badan waa ay ka faa'iideysteen lacag badanna waa ay ka sameeyeen adigana walaal waa aad ka faa'iideysan kartaa sidee iyagu uga faa'iideysteen application-ka linkigiisa waxaan ku soo dhigi doonaa fiideoga hadda daawanayso hoostiisa ama description-ka sida u taqaano comment-ga ugu horeeyana bin ayaa saaran application-ka linkigiisa markii aad ku dhufato waxa uu ku geenayaa haddii aad Android isticmaalayso Google Play Store-ka ayuu ku geenayaa oo Google Play Store-ka ayaad kala soo degi doontaa haddii aad iPhone isticmaalaysana App Store-ka ayuu ku geen doonaa kadib waa aad la soo degi doontaa application-kan magaciisa waxa la dhahaa Yeb ayaa la yiraahdaa markuu ku soo dago sidan ayuu ku soo saaraya loogadiisa u egyahay waad ku dhufan doontaa application-ka markii aad la soo degto wajahad noocan ayuu ku soo saari doonaa wuxuu ku leeyahay continue with Google ma Google-kaaga ayaad ku galaysaa continue with Apple mise Apple ID-ga ayaad ku gali doontaa meesha saddexaadna waxaa ku sii qoran sign up ayaa ku sii qoran samayso meesha afraadna waxaa ku sii qoran haddii aad account leedahay sign in ayaad dhahaysaa waad galaysaa adiga haatan waad cusub tahay waxaa kuu fudud oo aad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay continue with Google continue meesha ku qoran tahay ayaad hadhow kusii dhufan doontaa wuxuu ku soo saarayaa akoonadaada Gmail-ka ayuu ku soo saarayaa mid kamid ah ayaad ku dhufan doontaa aniga account hore ayaan leeyahay kan aan imika aan sameynayo waa for example aniga waxaan ku dhufanayaa kan labaad ayaan ku galayaa hadda waxaad ku dhufan doontaa wuxuu ku leeyahay Yeb wants to use google.com Yeb waxay doonayaan inay isticmaalaan Google-kaaga continue meesha ku qoran tahay aad hadhow ku dhufan doontaa walaal hadhow continue markii aad ku dhufato wajahad noocan ayuu ku soo saari doonaa ama interface noocan ah laba wajahad ayuu ku soo saari doonaa cancel iyo allow waxaad ku dhufan doontaa hadhow meesha ay ku qoran tahay allow oo macnaheedu ah ogolow sidan markuu ku soo saaro waxaad ku sii dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay yes walaal application-ka markuu ku furmo Gmail-ka aad ku sameysay ayaad soo furi doontaa waraaqada ay ku soo diri doonaa waraaqadaas ayaad aqbali doontaa haddii aad waraaqadaasi aad aqbali weydo hadhow lacagta lama bixi kartid ay ka dhigan tahay inay ku diidaan baa laga yaabaa marka ku verify gareeyaan waxaad tagi doontaan Gmail-ka markuu sidan ku soo baxo meeshan ay ku qoran tahay primary waxa laga yaabaa inaanu ku soo dhigin ayaa laga yaabaa halkan saddexda calaamadood saddexda dhibcood ayaa tagi doontaa meesha ay ku qoran tahay aad ka sii tagi doontaa hoose spam meesha ay ku qoran tahay aad ka fiirin doontaa ku dhufan doontaa waa kan way noo soo direen Yeb email confirmation waad ku dhufan doontaa kadib markii aad ku dhufato waxaad ku sii dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay waxaad ku dhufanaysaa saddexdaas calaamadood ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad ku sii dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay not spam kuwa uu ka baxayaa halkii hore ayaad ku noqon doontaa primary meesha ku qoran tahay ayaad ku noqon doontaa kadibna waa aad ku dhufan doontaa markii aad ku dhufato hadhow waxaad kusii dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay qoraalkan confirm email meesha ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa kadibna Google-ka ama browser-ka mobile-ka ku jira ayuu ku soo saari doonaa aniga haatan waxaan ka isticmaalayaa Google Chrome-ka ayaan ku dhufan doonaa kadibna waxay ku soo qorayaan account-kaaga waa la verify gareeyay qoraalkan ayuu ku soo saari doonaa ay ku qoran tahay your email has been verified email-kaagii waa la aqoonsaday waa la verify gareeyay kadib waad ka bixi doontaa halakan application-kii ayaad soo furi doontaa wajahad noocan ayuu ku soo saari doonaa meeshaas waxaad ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay halkan ayaad ku dhufanaysaa meeshan markii aad ku dhufato imika waa la sameeyay Yebkeeni waa la sameeyay total likes-kii 0 ayaan marinaa falaawankii dadkii aan follow gareeyay waa 0 followerskaygiina waa 0 akoonkan waa akoon cusub markuu sidan kuugu soo saaro xagga sare ayaad ku dhufanaysaa meeshan aan ku tilmaamayo kadib markii aad ku dhufato waxaad ku sii dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay edit profile-kaaga ayaad wax ka bedelaysaa haddii aanad profile-kaaga aad wax ka bedelin hadhow lacagta markii aad la baxayso reject inay ku soo diidaan baa laga yaabaa marka profile-kaaga iska buuxi qurxiso meeshan ay ku qoran tahay Yeb hadhow ID-gaaga ama magacaaga ayuu kugu qori doonaa halkan waad ka bedeli doontaa adiga magacaaga ayaad ku qoran doontaa meeshan username ay ku qoran tahay ka soo qaad aniga waxaan ku qorayaa Mahres
mahres baan ku qoray halkaa. Meeshan ay ku qoran tahay date of birth waa dhalashadaada geli ayaa lagu yiri. Kasoo qaad aniga waxaan gelinayaa 7 October 1995 don meesha ku qoran tahay aan taabanaya. Gender ayaa lagu yiri waxa tahay ayaa dooranaysaa male haddii aad tahay, nin haddii aad tahay male ayaa dooran doontaa, naag haddii aad tahay female ayaa dooran doontaa. Aniga haatan nin ayaan ahay, male ayaan dooranaya meesha ay ku qoran tahay kadib don. Halkan muhiimadu waa halkan haddii aad doonaysid inay Soomaali kula socoto oo Soomaali ku soo follow garayso meeshan hometown kaaga waxaad ka dhigi doontaa Mogadishu. Mogadishu markii aad gelisid location ka ayaad geli doontaa. Halkan waa Soomaaliya ayaad ku qori doontaa kadibna sidaas ayaad u buuxisay. Halkanna waxaad hadhow soo gelin doontaa sawirkaaga ayaad soo gelin doontaa. Waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay choose photo. sawiradaadii ayuu kuu soo saari doonaa. Sawirka markii aad saan soo geliso kadib waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay dan uu hadhow kuu soo saari doono. Markii aad halkan buuxisay waxaad ku dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay save. sidaad u save garayso waad iska yiri sugi doontaa. Profilkii waa inuu soo buuxinay wajahad noocan ayuu kuu soo saari doonaa. Meeshan ay ku qoran tahay calaamada gambaleelka ay ku qoran tahay waa notification-kii qofkii ku soo follow gareeyay, qofkii like ku saaray. Halkanna waa like-tii lagu saaray. Meeshanna waxa weeyaan waa views-kii aad heshay. Halkanna waxa weeyaan comments-yadii ay dadka ka bixiyeen. Waan ka soo noqon doonaa. Halkan waa dadkii waxyaabihii ay soo dhigdhigeen. Haddii aad rabtid like inaad saartid, like taas ayaad ku dhufanaysaa. waa saasaad u sii wadaysaa. Like ayaad ku dhufanaysaa, saasaad u sii wadaysaa. Qofkan haatan waa Soomaali weyn application-kan Soomaalidu xitaa hadda in yar ayaa taqaano. Qofkanna waa Soomaali, waxan oo dhan waa Soomaali aniga because location-kayga Soomaali ayaan ka dhigay. Haddaad doonaysa inay qolo Soomaali kula socoto, Soomaaliya ayaad ka dhigi doontaa location-kaaga. Haatan adiga waxaad doonaysaa inaad sawir soo geliso, aad lacag aad samayso, meesha sare ayaad ku dhufanaysaa. Meesha markii aad ku dhufatid calaamadan balasta ayaad ku dhufan doontaa. Calaamadan balasta markii aad ku dhufatid 3 wajahadood ama 3 face ayuu kuu soo saari doonaa. Haddii aad doonaysid gallery ayaad ku dhufanaysaa inaad sawir soo gelisid ama inaad video soo gelisid. URL haddii aad doonaysid inaad linki aad soo gelisidna URL-kaad ku dhufan doontaa. Trending memes meesha ku qoran tahay sawir ayaad ka soo dhigi doontaa. wax ayaa lagu siin doonaa, sawiradaada ayaad ku soo bandhigi doontaa. Waxa ugu muhiimsan gallery meesha ay ku qoran tahay ayaad hadhow ku dhufanaysaa. Gallery markii aad ku dhufaso aniga haatan sawir ayaan soo dhigi doonaa. Sawirka ayaan ku soo dhufan doonaa. Sawirka markii aan ku soo dhufto waan iska yar sugi inta uu ii soo baxayo. Walaal sawirkii markii aad soo doorato calaamadan cadaanta ayaad ku dhufan doontaa. Kadibna sidan ayuu kuu soo saari doonaa. Falaartan cadaanta ayaad ku sii dhufan doontaa. Meeshan sare waxaa lagugu yiri add tags ayaad halkan aad ku qori doontaa. Badanaa waxaa gelisaa haddii aad doonaysid in followers badan aad hesho, tagska aad gelinayso waa inuu noqdaan tags dadka dhan wada raadinayaan. Sidoo kale people tagskan people 26k baa raadinaysa, tagskaas ayaad ku qori doontaa. Tagska labaad aad ku qoraysana ha noqdo funny. Tagskaana waxaa raadinaysa 91,000 oo qof ah. Tagska soo raaci doona ayaa waxa uu noqon doonaa sports. Tagskaana waxaa raadinaysa 3k kadib waxaad ku sii dhufan doontaa meeshan ay ku qoran tahay next ayaad ku sii dhufan doontaa. Halkan waxaa lagugu yiri select one or more categories to make your meme easier to find. macnaha waxaa lagugu yiri sawirkaaga sidee dadka u soo raadiyaan markiiba ay u helaan. sawirkaaga maxaa uu ka hadlayaa? ma animals xayawaanku ka hadlayaa, ma cars gaariyaashu ka hadlayaa, ma gaming ayuu ka hadlayaa, ma lifestyle-ka ayuu ka hadlayaa, ma siyaasadda ayuu ka hadlayaa. aniga haatan sawirkayga waxa uu ka hadlayaa sports ayuu ka hadlayaa. sawirkaaga waxa uu ka hadli doonaa ayaad halkan aad tigta saari doontaa. kadib waxaad ku sii dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay publish markii aad ku dhufato waad iska yar sugi doontaa. sawirka isaga ayaa soo dhigmi doona. haatan waad aragtaa walaal sawirkii waa aan soo dhignay. haddii aan ku noqono profile-kaygii ayaan ku dhufan doonaa. insha Allah sidii aan hore kuugu sheegay ayuunbaad usoo dhigay fiidiyoyada iyo sawirada. walaal su-aasha aad haatan isweydiinaysa ayaa waxay tahay fiidiyogeyga ayaan soo dhigayaa, sawirkaygana waan soo dhigayaa. qofkan faa'iidada ugu jirtaa maxay tahay? waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay invite friends ayaad ku dhufanaysaa oo asxaabtaada ayaad ku casuumaysaa.
meesha ay ku qoran tahay zero installs haddii ay 10 qof la degaan ama haddii ay 50 qof la degaan halkaas ayaa tirada kugu soo qormi doontaa. halkanna waxaa kugu soo qormi doontaa lacagihii aad ka samaysay. meeshan hoose ay ku dhufan tahay copy link ayaad ku dhufanaysaa, linkigaaga ayaad copy garayn doontaa asxaabtaada whatsappka, facebooka, telegramka iyo meel walba aad baraha bulshada isticmaasha ayaad u diri doontaa adigoo u raacinaya. hadhow waxay ku weydiin doonaan sida loo isticmaalayo waxaa, kadibna fiidiyoogayga ayaa copy dhigi doontaa, ayaa u diri doontaa siduu walaalka uga faa'iideysto. dabcan ilaa 100 qof ilaa 150 qof haddii ay kusoo raacdo ilaa lacag dhowr adii badan, lacag badan waad ka samayn kartaa. $15 iyo lacag wixii ka badan maalintii ayaaba ka samayn doontaa ilaa $30 ilaa $20 haddii aad asxaab badan aad baraha bulshada aad ku haysato. haddii aad sawir iyo fiideo aad soo dhigto lacag yar ayay kugu siinayaan, marka lacag badan kuguma siinayaan, laakiin lacagta badan waxaad ka helaysaa meesha ay ku qoran tahay invite friends ayaad ku dhufanaysaa, asxaabtaada ayaad u diri doontaa linkigaaga. qof walbo iska soo diiwaangeliyaa 30 senti ayaa ku saaran. laga yaabaa adii muxuu ahaa asxaab badan haddii ay linkigaaga iska soo diiwaangelinaan adigoo aan sawir iyo aan fiideo soo dhigin ayaa lacag aad ku samayn doontaa. haatan waxaad isweydiinaysaa lacagta ugu yar aan la bixi karo waa imisa. lacagta ugu yar aad la bixi karto waa $10 oo halkan waxaa ku qoran zero ayaa ku qoran. meesha 10 haddii ay kugu soo qormato waxaa looga jeedaa macnaheedu $10. lacagtaadana meesha ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa. hadhow withdraw meesha ay ku qoran tahay, withdraw markii aad ku dhufato new withdraw meesha ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa. haatan aniga wuxuu leeyahay the minimum withdrawal amount is lacagta ugu yar ee aad la bixi karto waa 10 yeb counties. 10 yeb countiesna $10 ayay u dhigan tahay. dabcan hadhow toola aniga ayaa fiideo kasoo sameyn doona anigoo lacagta la baxaya. marka laga faa'iideysto applicationkan walaalka ha kula faa'iideysto, la wadaag. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.